meeshaan joogo Malaysia miya marxab Ramadaan miya maalmo kadib Ciidul Fidri miya muuqaalka caawa macaan miya ma bilownaa hadda bulshadana diyaar miya hadda mar kale ma bilownaa hadda waa bilaabaynaa hadda taasina waxay ahaayeen kaftan yar oo aan caawa barnaamijka ku soo kordhinay maadaama ay dadkana daawada yihiin 95.9 dhalinyaro kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Janaal qodobada caawa inta uu socdo barnaamijkeenana aad ku maqli doontaan waxa kamid ah uguna waaweyn سميحة خليل آد أيان أهوبا إن أي كمي تهاي كوحدة إشياء أما الشياطين تضدك أي كوشا قيستان maxaa ka jira in Samiixa Khaliil ay ka mid tahay qoliyaha shayaadiinta caabuda ee loo yaqaano Illuminati Sharma Boy oo sheegay xilliga uu dhici doono arooskiisa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta uu barnaamijkeena socdo fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanaynaa marka hore inaad muuqaalka aad like saartaan aadna ka mid noqotaan kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga ugu horeyntiina ummadda muslimiinta waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak sida aad la wada socoteenba waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada lisla dhexmarayay hadallo ku saabsanaa in Sharma Boy iyo waliba xaaskiisa milyuunmaanka kala tageen intaas kadib Sharma Boy ayaa waxa uu soo fariistay bartiisa TikTok-ga waxa uuna sheegay in asaga iyo milyuunmaanka ay kala tageen sidoo kale milyuunmaanka oo ayadana dhowr jeer ka hadashay ayaa markii ugu dambeysay waxa ay sheegtay in ay xaajigeedii hore Sharma Boy ay kala tageen kala tagooda intuusan soo shaac bixin ayaa waxa ka horeeyay muuqaal uu Sharma Boy iyo wiil kale oo ay saaxiibo ahaayeen gaari dhexdiis ay ku duubeen muuqaalka ayaa wuxuu ahaa Sharma Boy ayaa wiilka saaxiibkiisa waxa uu weydiiyay hebelow haddii aad xaaskaaga kala tagtaan qabiilada Soomaaliyeed qabiilkee ka guursan lahayd muuqaalkana wuxuu ahaa sida tan Ayub Shino صاحي معك ما قرصت ولي بابها ilmo ma dhashay ilma ay jooga hadda xaaskaaga ma ku joogtaa ma ay waa kala tagteen muddo intee aa kala maqantiin 5 bilood meelaha 5 bilood dhan okay ma rajaynay inaad isku noqotaan ma rajaynaysa inaad isku noqotaan okay niyow hadeertaan haddii lacala lagu dhaho qabiilka gabar aa ka guursan lahayd ama hami uu kaaga jiro ama ku guursa haddii lagu dhaho ama gabdhahaas inaba caadi ma ahan haddii aad guursato waxa way gabadhaas asleeda ma sheegi kartaa ii sheeg habar gidir waay saxaabo wallahi oo billahi oo tallahi inaan niyadeeda ku jirta ama leenaay gabdhaha habar gidir wallahi gabar loo dhigo horna waa idin kugu sheegay ana ma jirto ama isdagaala ama iscuna idinka idin taala muuqaalkaas kadib Sharma Boy ayaa waxa qaybta commentiga u soo buuxsamay dhammaan shacabkiisa Soomaaliyeed ee adduun weynaha oo dhan kala jooga Sharma Boy ayaa waxa uu kala kulmay muuqaalkaasi dhaleeceen aad u fara badan waxa ayna sheegeen in muuqaalkaani uu ugu gofay qabiilka uu sheegay ma ahan qabiilada kale gabdhahooda haddii si xun loo dhigo dadka commentiga Sharma Boy ee arintaas ku dhaliilay way saxan yihiin haddii sida kale loo fiiriyana way khaldan yihiin inkastoo maamaha ay ahayd hadal waa margo hadba meeshii loo dhiga ayuu yaalaa taasi oo loola jeeday hadalka aniga hadeertan aan ku hadlayo in aad xumaan ka dhigan kartid sidoo kalena aad si samaana aad ka dhigan kartid laakiin Sharma Boy ayaa waxa uu shaaciyay in dhawaan uu aqal gali rabo muuqaal dhowr daqiiqo soconaya uu soo dhigay bartiisa TikTok-ga ayaa waxa uu ku soo bandhigay guri qurux badan oo ku yaala Puntland gaar ahaan caasimadiisa Garowe muuqaalka oo hadda idin muuqda ayaa waxa ka dhex arkaysaan Sharma Boy oo ku fadhiya kuraas ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee hadeertan Soomaaliya guryaha la dhigto sidoo kale muuqaalka waxa ku jirta xoogaa xaraga ah dad badan oo ka soo falceliyay muuqaalkaas ayaa waxa ay sheegayaan in Sharma Boy uu wali ku jeesaayo xaaskiisii hore ay kala tageen laakiin sida aan horeyba idinkugu sheegay hadalka Soomaalida waa margi oo kale haddii aad dhahdaan Sharma Boy waxa uu ku jeesayaa milyuunmaanka waa saxantihiin haddii kalena de si wanaaga ayaad u fasiran kartiin maxaa yeelay qofka waa bili aadan waxa uu leeyahay
sida adinkoo kale naf. haddii shakhsiga uu noloshiisa ku raaxaysanayana ceeb ma aha haddii uu soo dhigo guri qurux badan oo weliba uu dhowaan ku aqalgeli doono. taas micnaheeda ma ahan in malyuunmaanka uu ula jeedo, laakiin muuqaalkaas ayaa waxa uu u soo duubay kolley sida asaga uu aaminsan yahay dadka cadowgiisa ah ee noloshiisa ka xun inuu heerka ka gaaro inay muuqaalka ku raaxaystaan. sidoo kale qaybta commentiga ayaa Sharma Boy waxaa looga qorayay in gabadha uu guursan raba ay tahay reerkii uu bil ka hor bartiisa TikTok ku xayeysiiyay. dhowr commenti oo isha aan la maray oo aan rabin inaan hadda halkan idin kula wadaago ayaa waxa ay ahaayeen ammaan oo qayb ka mid ah gabdhihii reerkooda u amaanay ay amaanayaan. ugu dambeyntiina Samiixa Khaliil oo aad si weyn u wada taqaanaan ayaa waxa baraha bulshada maalmahan la soo geliyay inay ka tirsan tahay kooxda shayaadiinta ah afka qalaadna loogu yaqaano Illuminati-ga. qoladan ayaa waxa ay haystaan dhammaan adduunka oo dhan haddii ay noqoto sportiska, dawladaha, wax kasta oo adduunkan ugu waaweyn. kooxdan waxa ugu jira shakhsiyaad ayaga ka tirsan ama ayaga ayaaba gacanta ku haysta. sportiska kale marka aan fiirino ama kubadda cagta, dhammaan ciyaartooyda ugu caansan uguna waaweyn iyo kooxahoodaba waxa ay hoos tagaan qoladan shayaadiinta caabuda. haddii aad rabtaanna hal program waan idinkaga soo diyaarin doonaa oo ku saabsan kooxdan iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyo shakhsiyaadka Soomaalida ah ee looga shakisan yahay inay ku biireen. waa haddii muuqaalkaani uu gaaro ilaa 5,000 oo like. qaybta commentigana aad ka soo dalbataan waxa ay qabtaan qoladan shayaadiinta ah. intaas kadib wiil ka mid ah dhalinyarada TikTok isticmaasha ayaa waxa uu soo dhigay muuqaalkan hadda bal ila daawada. Samiixa Khaliil aad ayaan u hubaa in ay ka mid tahay kooxda isha ama shayaadiintu dadka ay ku shaqaystaan. dad badan oo YouTuber ama caan ah ayaa jira laakiin weligood aanan sadaqay u ururinin masaakiinta una danqanin. الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف وحأوليها أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Samiixa Khaliil kooxdaas ay ku jirtaa isha la yiraahdo oo waxay magaranaysaa la shaqaysataa shaydaanka iska dhaafiyada. furaha waxay ku soo rogaysaa dirisle inuu ka warqabin iyadu magaranaysaa kooxda tahay in kale Allahu yaclam, laakiin waxay u badan tahay inuu ka warqabin. haddii uu baadhana wuu ogaan doonaa. dabcan muuqaalka waad dhamaysanteen sida ay aniga ila tahay. inta aan u gudbinba Samiixa Khaliil ma shayaadiintaasi ku jirtaa, bal wax yar aan idinkaga taataabto. bishii ugu dambeeyay Samiixa Khaliil maxay ku mashquulsaneed. Samiixa iyo dirisle oo ah lamaane la isku xanto ayaa dalka Kenya waxa ay ku aruuriyeen lacag dhan ilaa $200,000. lacagtaasi ayayna ku caawiyeen dad masaakiin ah oo ku noolaa xeryaha qaxootiga ah ee dalka Kenya ku yaala. intaas kadib Samiixa iyo dirisle waxa ay ka soo degeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. sidii caadada ahayd ba waxa ay caawiyeen dadka masaakiinta ah ee Muqdisho degan. haddaba ma kula tahay Samiixa Khaliil oo intaasoo wanaaga sameysay in ay ka tirsan tahay qolyaha shayaadiinta caabudo? waxaan leeyahay wiilka dhalinyarada ee baraha bulshada soo dhigay walaal caawo waa nooshahay, jaanis ayaana haysataa. waxaan ku leeyahay waa bil Ramadaane, gabadhan masaakiinta ah ee walaasha oo kala ah ee hadda joogta dalkii Soomaaliya in aad lambarkeeda ama kontaktigeeda raadisid inaad ku dhahdid iska kay cafi. maxaa yeelay bil Ramadaan markii laga soo tago qoladaad ku dartay in gabadhan ay ka tirsan tahay bataatanba waxa waaye waa qolo caabudo shayaadiinta. jaaniskaas waxaan ku dhihi lahaa yuusan ku dhaafin. sidoo kale walaashay Samiixa waxaan kula talin lahaa waa bil Ramadaan ayada laftirkeeda in ay iska cafiso. maxaa yeelay danta koowaad uu ka lahaa waa dareemi karnaa. ma ahan in Samiixa uu ku xumeenayo waxa ay ka tahay sidee ku heli kartaa in muuqaalkaaga uu u gaaro dad aad u fara badan. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak. sidoo kale haddii aad u baahan tihiin qoladan shayaadiinta caabudo ee adduunka oo dhan haysta inaan program idinkaga soo diyaariyo, waa ballan inaan idin soo daayo, laakiin hal shuruud ayaa ku xiran. waa muuqaalkan inuu gaaro 2,000 oo like ah. sidoo kale qaybta commentiga ayaad ku soo qori kartaa in aad rabtid iyo in kale. muuqaalka waxaa soo diyaariyay caawa walaalkay Saciid Faraati, waxaana ka daawanaysan Burhaan Channel. sidoo kale anigoo Burhaan Cali ah ayaa muuqaalka idin daadihinayay.